waxaan rabaa kelimadayda inaan diiradda ku saaro in badanna waa laga hadlay xisbiga markii la yidhaahdo horta waxaan dhisayna waa xisbi. waan ku celinayaa waxa la dhisayo waa xisbi. Soomaaliya waxaan dhisayna waa xisbi siyaasadeed. waxaan rabna in la dhiso waa axsaab siyaasadeed. waan dhiirigelinaynaa bahda axsaabta ee isdiiwaan gelisay oo saaxiibadeena horteena fadhiya waan bogaadinaynaa iyagana. waxaan ognahay inay ka qayb qaadanayaan horumarka dalka. waxaan ognahay oo garwaaqsannahay inay bahwadaag nala yihiin. intaa kadib waxaan rabaa inaan dul istaago magaca xisbiga bis. waxaan rabaa inaan dul istaago magaca xisbiga. intaas ayaa waxaan u malaynaya iga filnaan doonta kelimadayda. nabadda markii la yidhaahdo qof walba nabad waa la bixi karaa. magaca nabadda la yidhaahdo gabadhii hoballadda ahayd oo haystay halhayskeedu wuxuu ahaa nabadaa naas la nuuga leh. waxaan u doorannay inaan nabaddu meel kasta ayay gashaa. nabaddu keliya ma ahan midda amniga ma ahan keliya. Soomaaliya waxay u baahan tahay marka nabad buuxda ayay u baahan tahay. laakiinse nabad iskama timaado. waxay u baahan tahay waa inay noqoto nabadayn siyaasadeed. waa inay noqoto nabad siyaasadeed. Soomaaliya colaadda siyaasadeed ee ka dhacday waxay ahayd colaad siyaasadeed. Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad siyaasadeed. qabaa'ilka Soomaalidu ma diririn. diinta islaamka oo xaniifka ahna ma diririn. waxaa dirirtay siyaasaddaa dirirtay. sidaa darteed waxaan u baahan nahay nabadayn siyaasadeed. nabadayn siyaasadeedna waxay u baahan tahay nabadoonno siyaasadeed ay u baahan tahay. waxaan rabnaa xisbigan inaan dhahno wuxuu u taagan yahay nabadoonnimo siyaasadeed. Soomaaliya shayga ugu baahi badan tahay maanta oo ka maqan waa nabadoonnimo siyaasadeed. midnimo lama arkayo haddaanan nabadoonnimo siyaasadeed aan la helin. senator Muhyiddin waxa uu ka hadlay waxay ahayd labadii Soomaaliyeed ee isku biirtay mid baa dib u noqotay oo la noqotay. wax baadigoobkeedii iyo nabadoonnimadeedii ku jirana ma muuqdaan. meeshaas marka nabadoonnaan u baahan nahay. siyaasi faraxsan iyo mid xanaaqsan wax kelimada macno leh maaha. waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo siyaasadeed. wax lagu farxo qofku markuu arko. qofka siyaasiga wuxuu ku farxo markuu arko wuu farxaa. wuxuu ka naxo markuu arkana wuu murugoodaa. marka waxaan u baahan nahay wax aan ku farxno ayay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin. marka xisbigan isaga laftigiisa ayaa ka shaqayn doona insha Allahu tacaala wax aan ku farxno. mana ka shaqayn doono haddii Ilaahay yidhaahdo waxaan ka murugoono. marka nabadda waa ka guda weyn tahay midda inta badan lagu macneeyo. waxaa kaloo xisbiga magaciisa ka mid ah horumarka. horumar
isaguna wuu guda weyn yahay wuu macno weyn yahay waxaan ula jeednaa annaga marka ugu horraysa horumar siyaasadeed dadka waxaa laga yaabaa inay ku soo dhacdo horumar dhaqaale horumar bulshadeed haddaanan la helin horumar siyaasadeed haddaan la helin horumar dhaqaalena ma imaanayo horumar bulsho ma imaanayo horumar amnina ma imaanayo waxaa daliil u ah shalayto 2016 waxaan rabaa inaan idhaahdo cid kasta waxaad ogaataan ood naga qortaan cid kasta wixii aan ku dhaliilno annagaa rabna inaan u taagnaano daliil faaruq ah ma soo jeedin karno ummadda Soomaaliyeed lama soo hor istaagi karno dhaliil haddaan xisbi nahay dhaliil lama soo hor istaagi karno ilaa waa annagu inaan u taagnaano oo annagu aan ku sifowno nabadoonnimada annaga inaan ku sifowno waayo kan dulman annaga inaan u gargaarno waayo horumarka siyaasadeed annaga ayaa u istaagay Soomaaliya maanta ito horumar siyaasadeed maxaa lagu cabiri karaa ama nuqsaan siyaasadeed ama dib u socodnimo siyaasadeed waxaa ka mid ah in anoo ku halqabsanaya senator Muxyidiin labadii Soomaaliyeed oo isku biirtay mid baan baadi goobayn oo raadinayn tii hadda ma taqaanaa waaba la hilmaamay dowlad goboleedyadii mid bay u tageen way sii socdaan taasu waxa weeye dib u socodnimo siyaasadeed waaye annaga waxaan u taagannahay horumar siyaasadeed horumar siyaasadeed political development waxaa ka mid ah dadka Soomaalidu inay helaan muwaadiniin xaq u leh cod inay dhiibtaan oo cid ay rabaan doortaan oo cid ay rabaan diidaan waa horumar siyaasadeed annagu waxaan rabnaa inaan ku sifowno sidaa darteed sidaan roobayn kugu ballan qaaday anigu waxaan rabay keliya inaan magaca dul istaago magaca xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo ah nabad ka guda weyn mid aan naqaano waa nabad siyaasadeed ayaa number 1 ah horumar siyaasadeed na waxa weeye waa number 1 kadib ayaa horumarka kaleeto oo dhaqan dhaqaale iyo bulshada la aadaa hadalkayga waxaan ma raba inaan ku dheeraado meeshan oo maaragtay munaasabadda maanta ah waxaan ku celin hadalkii munaasabadda ugu muhiimsan hoboladeenii ay ku haystay nabadaanaas la nuuga leh waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo nabaddaas waxay u baahan tahay in loo istaago in nabadoonno siyaasadeed la noqdo annagu inaan noqonno ciddii aan nabad ka shaqaynayn ama nabadda dhibaato ku ah inaan farta ku fiiqno oo aan dhaliilno cid aan jecelnahay iyo cid aan necabnahay ma jirto waxaan necabnahay falka qaldan qowlka qaldan wixii qaldan waan necabnahay waxaan soo dhawaynaynaa cid walba oo ka shaqaynaysa oo nagala shaqaysa horumarka iyo nabadda ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u yeero halkaan uga yeero kelimadiisa saaxiibkay xildhibaan gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Jaylaani Iikar si uu kelimadiisa iyo dardaarankiisa